أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأخواتي في الله، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كسر واد بيجكنا والله فما أنت سي عن أصو قلي رنتي دقدقة أي وكلفتي أرنتان صور كماشنا كمغضة وحنو بحيي muuqaal murugo geliyey ummadii badnayd ee Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed. muuqaalkan ama videogan aan idin soo deyn doono haddii la yiraahdo wixii diin ahaan Ilaahay iga garansiiyo iyo qowlba inaan ka iraahdo waa mas'uuliyad ummadda Soomaaliyeed guud ahaan u saaran, gaar ahaan dadka wacyigelinta bulshada u taagan diinteeda iyo akhlaaqdeeda inay u dhowrsanaatana jecel mid guud u saaran weeye. inaan wax ka iraahdo ayaan jeclaystay. diinteena islaamku maxay ka qabtaa, maxay ka tiri, arrintan ma dhacday, ma la hayaa meel ay ka dhacday iyo si ay u dhacday, inaan insha allahu tacaala arrintaa idiin soo tabiyaan jeclahay. muuqaal gariyey murugo qalbigayga ay weeye kanu. insha allahu tacaala alla idin xifdiyo dhammaanteen murugu geliyey qalbigeenna muuqaalkan ama videogan walaasheen ay nala soo share garaysay. walaalayaalow share dhaha, faafiya khayrka inaad faafisaan. allahan annagoo dhan nagu duwo. runtii sharta aad baa loo faafiyaa. videogan aad buu u faafay, xalay buu isoo gaaray. wallaahi baan ku dhaartay hurdada xalay wuu iga haleeyay. uma wallaahi baan ku dhaartay xalay hurdada ayuu iga haleeyay videogan ama muuqaalkan. waana weliba qof Maraykan ila jooga, Iowa degan. Iowa mar baan dhex maray, Des Moines Iowa mar baan dhex maray. runtii waxa weeye waa mas'alo nagu cusub. waa ummadii Soomaaliyeed oo fabrigeedii iyo waxay u taagneyd iyo qiyamkeedii iyo akhlaaqdeedii runtii wax weyn oo damage uu gaaray weeye. ma jiraa mise ma jiro ma aha waxaan u taaganahay. waxaan ka hadlayna waxa weeye maxay arrintaanu daaran tahay, xaqiiqadeeda diinta islaamka ma ka dhacday, hore ma uga dhacday, xukun ahaan maxay tahay, wixii Ilaahay iga garansiiyo ayaan jeclahay inaan ka iraahdo. ikhwaani wa akhwaati fillah, dad aad damage u gaaray muxuu ahaay ummad ahaan, bulsho ahaan, akhlaaqdeedii uu dhib fara badan gaaray baan nahay. dalkeedii burburay oo iyadii isdishay isbaabi'isay. runtii waxaa nala ka soo weeraray meelo badan iyo caqiidadeennii. intaa waxaan u taaganahay beejkeena daacishow iyo dadka nagu taageero idinkoo kale ah la khayrka ah inaanu mar walbaba diinteena islaamka boorka lagu sayraya iyo wasaqda ka ilaalino. waxaan u taaganahay intaas inaan gaalada iyo qashinka ka difaacno. hadeerna shiicadan dib ugu noqonaynaa haddii Ilaahay yiraahdo, aniga iyo wixii Ilaahay ugu daro oo akhyaar ah. shiicadan ka hadli doonaa dhawaanahana, musalsalna kasoo gelin doonaa. waa arrimaha aan ku mashquulsanaa oo waqtiga badan iga qaatay iyo page-ka aan rabo inaan dib u dhiso. iyo waxaa weeye haddii la yiraahdo meediyaha guud ahaan oo aan rabno in si fiican u galno oo waqti badan nagu qaatay oo aan ku jiro welina hawsheeda aan ka dhammaan baan la maqnaa. haddana maanta waxaan u taaganahay bal inaan ka hadlo arrintan. runtii muuqaalkan qalbigayga geliyey murugada, ku abuuray inaan seexan waayo. bal gabadhan walaasheen ah marka hore aan wada dhageysano. Soomaaliya waxaan maanta live waliga ma gelin, laakiin live waxa ay kaliftay inaan maxaa la yiraahdaa arrin ka hadlo. arrintaas oo ahayd aniga horta hooyo 4 caruur ah leh ayaan ahay. 4 caruur ii joogta. nina waa qabay. ninkii qabay wuxuu sameeyay wiil ay saaxiibo yihiin baan la degnaa. أنا هبين بنشقيني يبغون ما بيشقيناين من كيجو الله محمد آدم محمد حلا لا نستيسو تهاي من كلنا اللي يراد مولد عليه دتك أنا يقانا أيوان دقنا هاي إن واحد عضي إن هبين هذا كمل إن كسبح شقة حلقة أن كسبح شرنا كسهر مري oo aan ugu imaaday ninkayga dabada laga khaniisiyo. sariirteedii, warshadeedii dhammayd, gurigeygii dhammaa oo in badan arrintaasi ay ugu socotay. kolle mid xalay habeen iyo kahor sii horeysay bilaabatay lama ahan. hase ahaatee way dhacday. horey ayaa waxaa
jiray waxaa u maqli jiray kaniisiin way jiraan laakiin isla dhehayna gurigaaday ka dhici doontaa hase ahaatee way ka dhacday waa ka xumaa codka sare uma qaadi karo insha allahu tacaala videoga codkiisa sidaas ah maama malyuunna aad baan u taageeraa xaqay ka hadashaa waxaysan soomaali rabin in laga hadlo bay ka hadashaa qaris baa barateen qariski waa dhammaaday wixii la qarin jiray waa isku dhammaadeen wax dambe oo la qarinayo haba yaraatee malahan wixii xawaale جزاكم الله خيرا ولا لا قار وحنا أركع إله كبق إله أنا قدن تقوى يعبسده نقصه دو كبدنا ولا شيء ما وحنا يدينا يو من اللي هي وحوي ويتحي وحن أو بين بشيء يسا وبين لي مليه ننكو وحوي هاي مليه إله بان نقول وحد عين وحن ربع أنت عن باللعبين قصة إن شاء الله تعالى إن عن قرآن كدي بقول لعبنا دي بقول لعبنا الدين تاني السيرة ده arrintan horay ma u dhacday nacam way dhacday wax u eg baa dhacay nin xaaskiisii ku eedeeyay inuu nin ku qabtay markhaatina uusan haysan baa dhacday fi suurati nuur aayadda alla subxaanahu wa tacaala lixaad waxa uu ku leeyahay والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إخواني قلبي يقول لا رنتي بكوضة أدنى الله رحمه هذا آيات كان قرآنك وهو وحي كهضليان سورة النور آيات اللي حاد إلى مدة الضبات وحي الله سبحانه وتعالى نقول حسوسيني قصد على حلي رسولك صلى الله عليه وسلم وإسلام مركزي دعلي سي أوين تهي أوين محوها وحنون بدن تهي سورة النور وحيابه كهذا الشبع أين تهي إن أي دفاع ذو أو قصص كنوع عنه وكلا بالشدة وحيابه حنو قفع فيه أيها الله سبحانه وتعالى إن بدن كهذا وأنا آيات وأنا سورة الجبرية لأمنا عائشة رضي الله عنها قصة وحيلا ذا من سحابي أي جورجي سكتة مرك وقصة نقضي أيوه ويمد حاسكيسي أو نكفريه سبحان الله markii ay dhacday wax markhaati ah oo haya male diinteena islaamka sidii arintan u adkaysay daraadeed waxa ay ku sheegtay in qofka uu leeyahay 4 markhaati ah afartaas markhaatiga ah waa inuu mid kasta yiraahdo waan arkayay wayna isku jireen maaha way isku jiifeen way isla galangalanayeen way isdhuuqayeen way isla qaawanayeen cidna laga ma aqbalayo saddex haday dhahdo way isku jireen oo anaga arkayna isagoo galaabaxayo xubintii ninka kan afraad haduu yiraahdo ma arkaynin waxaan arkayay iyagoo isku jiifa kaliya laga ma aqbalay shahaadadooda waa ka kac saas daraadeed baa diinta islaamku meel dheer ay dhigtay oo qofka dhagaxaan iskaga dili karin zinaduna waa khatar qofka soo guursadayna waa dhagax waxay diinteena ka xukuntay ma aha diinteena oo kaliya bible-ka ka helaysa in diimihii naga horeeyay ay sidaas ahaayeen okay arintan marka uusan qofka u haysanin wax markhaati ah si uu qofkii ugu yimid gurigiisa asaga oo uu qofkii faashixaysa sameynaysa xaaskiisa ahayd muxuu sameynayaa bay diintu tiri Allah subhanahu wuxuu yiri 4 dhaarood buu dhaaranayaa marka ugu dambeysana wuxuu ku soo gabagabeynayaa in ay lacnadi ilaahay ku dhacdo haduu been sheegayo wal fiiriya ikhwani fillah meesha la gaarsiin hadii uu been sheegayo ilaahay lacnadiisa ku dhacdo ayuu isku habaaraya asaga is habaaraya habaar buu isku tuuraya markuu intaas sameeyo oo uu isagi intaas dhameeyo iyadii waxa lagu yeelanayaa waajib ku noqon isaga marka hore haduusan afartaas maqdaarood iyo lacnada ilaahay isku tuurin waxa waajib ku noqonaya xaj in laga oofiyo xajul qadfa ku dhacayo
haddii uu qofka isaga arrinta iyada uu soo caddayn waayo isagaa lagu yeelanayaa qof in uu caayay muslim ah أو قذف كتوري دنبيج السجع 80 جدال وحكاك دعيا أسمع إنه أفر دارات إيوه لعنات سكتوره وهو جبي يلا يكون رجع سامرك يلا عمرك عصو حلقة ربع وسد آيات كليهين يلا عمرك وحلقة ربع إن أي سمايسو أفر دارات أو كلا مركزه وحيله ده إلهي غضب كيس عرديس كي هو لعنة دي بعيد كانه وحيله ده هاي غضب كإلهي عنيق عرد إلهي هاي يقول عضو هدي عن هاي مد رون شيء يهدوي هاي السبب إن كان من الصادقين هدو رون شيء يبقى أنت مكون رون شيء عنيق لعنة إلهي هاي يقول عضو بيلا ده يكون جبيني سا لبدودي حكم كرتم يحاول لبدودي ولا كلا دريا dib oo dambana isuma guursan karaan dadka ilaahay bay kala raacayaan arrinta maxaa ka rabtay waa arrin aad iyo aad diinteena meel dheer ay u dhigtay oo u weyn weeye waxaan marka rabaa bal suurada waxay bay kaga gedisan tahay anigu caalimnimo ma sheeganayo cilmi iguma dhamaan masalatul furuujna masalo adag weeye markay gaarto arrinta beeca iyo furuujta laguma degdego arrintaan shaabahdaa malihi oo waxa weeyaan si toos ah 100% ku tahay malihi laakiin waxaan leeyahay oo xaqiiqo ah waxa taagan wax musiibo ummadda Soomaaliyeed haleelay waxa noo muuqdo in ummadda Soomaaliyeed akhlaaqdeedii si burburaysa maalintu maalin waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro akhiran gabadha walaashay ah ee arrinta iyada soo bandhigtay inaan iraahdo sidatan walaalay ma u fiirsato ma ka fakartay caruurtaada yaryarka ah marka arrintan faafinaysa ee ka hoos ooyeyso wax la qarinaya malahna aad leedahay iskariska iyo woundska dhaawaca iyo waxa weeye jaraaxada soo gaartay qalbigooda ee ay weligood xambaarsanaan doonaan ma ka fakartay walaalay arrintan in ay noqon karto tula beensado adiga aad qalbiga ku xambaari doonto xanuun fara badan adiga ku xanuunjiyo ikhwaani إلهي سبحانه وتعالى وحنا ليه هاي وحن إذن سو دجيي لباسا يواري سوءاتكم وريشا وحن إذن سو دجيي درعات حرتان يوحوي يوحد هوتان وحن إذن سيي وحد كو قرصتان قلبينا يمحن كور هذا وحد كو هيستان معاني وح بنان كورن كو قرصتان بين سيي بركان وحن وحرنا هاي إنان برايفت بارتيغا نغا وحي أنغا نو خاص أن كو أسطرن غريها وحن ugu jirnaa in aan ceebaha naga ku asturano qaawanaantanada iyo xumaantanada aan la arag subhanallah ka waran hadii aad adigu albaabka inta furto qaawanaanta caruurtaada iyo dadkaaga iyo ninkaaga aad tusiso inaad asturato meeshay ahaan lahayd Allah subhanahu wa ta'ala dadku isaga dhigay libaaska hadii ay wixii dhexmaray ka sheekeeyaan khatar ba ka ratimayso rasuulka sallallahu alayhi wasallam leeyahay ku aan la afin buka soo galaya waxaan leeyahay guriyaha waxyaabaha ka dhaco haddii xataa ay xaqiiqad tahay waxa ka qurux badnayd in maxaan ku raahdaay la qariyo oo in hoose loo sheego haddii ay wuxuu jariimo ka ratibmaysana dawlad iyo booliis loo dacwooday leedahay in meeshaas la gaarsiiyo in la kala tago oo aan maxaan ku raahdaa caadi la sufura ka fiicnayd in aad loo soo dacwoodo Facebook ceebna ku asturmay gurigaagana waxba kama qabanayo waxna ma hagaajinayo xumaantaada musiifa faafinaya dhaawaca gurigaaga ka qayb qaadanaya dhibaato u geysanaya waxaan leeyahay ikhwaani wa akhwaati fillah please fadlan aan dib iskugu noqono akhlaaqdeena waxba ka qaldamay dhib fara badan baa na gaaray burburkii wax weyn buu noo geystay annagii oo dhan baa burburayna waxa weyn fabriga iyo ummadda isku xirnaanteedii iyo nasiijkeedii baa baaba'ayo kala gogo'ay ikhwaani waxaan ku soo khatimayaa anigu Allahu a'lam baan taaganahay wixii meeshaas ka dhacay cidna ma garan karto gabadha walaashay si yar oo basiid ah bay u hadashay oo xitaa qeyr aysan ka muuqanin wax aan ka xukumi kara saaka ma jiraan aniga ma dhihi karo waa saxiix ma dhihi karo waa maxaan ku raahdaaya been ilaah baan naga garanayaan leenahay laakiin waxa naga khuseeya ka bulsho ahaan waxaan wada leenahay jiro waxaan wada leenahay akhlaaqda guud iyo bulshada isku muxuu ahay wax ay wada wadaagto bulshadu wax ay wada leedahay ilaashatay leedahay tarbiyada caruurta aad arkaysaan oo streetku ama wadooyinka ummadda Soomaaliyeed ku tarbiyin jirtay waxay ahayd wax ay wada leedahay ilaashanayso
arrintaa iyada ah waxyaan loo dhimin. fadlan waxyaabaha private-ka ah ilaahay private buu ka dhigay, waana noo asturay aan asturano, aan ka dayno waxyaabahan aan faafinayno had iyo jeer oo private-ka noo ah public-ga aan soo dhigayno. ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo. waxaan jeclahay inaan commentigiina markaana fiiriyo. saad waad i qadariseen, i soo dhaweyseen, i daawateen, anigoo aan wax badan idiin sheegin, aqoonna idinku dhaamin. allah idin barakeeyo. markaan waxaan fiirinaya insha allahu tacaala commentiyadiina. ها وارنتا ولا السلام عليكم السلام ورحمة الله. صح ويتري ولا شيء صفراء يا وي مليون حسن ما قرنا يو وهاي هاي صومالي دين بهنسنا حد نوع كو كان مركا وحن حقيقة لهين شيخو waxaan ka hadlay waxaad ka hadlayso isma leh. waayo calaykum assalaam sheekh maxaa ceeb la mooday wardiinta ha ka been abuuran wax sax ah laga hadlo. okay aniga haddaad iga hadlayso commentiga waa isbedelay sorry. wax sax ah akhi ukhtima waxaa ah in uu qofku la yimaado wixii asaga private-ka u ahaa public inuu soo dhigo. ma u malaynayo ma aha sax kasta hadday tahay wax gurigaaga ka dhacayo inaad asturataa ilaahay subxaanahu watacaala ayuuna faray. jazaakum allahu khayran. si fiican iguma muuqdaan commentiyada dhinac buu iga maray. ilaahay soo hadeeya anagoo dhan hana hadeeyo. jazaakum allahu khayran. walaalayaal sii faafiyo sii gudbiya. walaashay waxaan u dardaarmayaa sabir baan u dardaarmayaa. walaalkii gurigaas uu ka dumay oo dhibaatada ku dhacday sabir baan u dardaarmayaa. caruurtaas ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda ha dhowro, bulshadeennana ha dhowro. jazaakum allahu khayran. biidni illaahi tacaala waxaan soo wadnaa shiicada oo aan haddii ilaahay yidhahdo kelibyo badan kasoo gelin doono oo aan haddii ilaahay yidhaahdo fashilin doono meelaha iyo godadka ku dhuumanayaan. asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.